ugaaska guud ee beelaha Fiqa Cabdalle ugaas Cabdirasaaq Koosar Cali Kaahe maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka madaxa bannaan ee Somaliland Space Channel ayaa ka hadlay fiig loogu talagalay in lagu qodo cilmiyo ay lahayd degmada Allay Baday taasi oo uu sheegay in dana gaar ah loo adeegsaday isagoo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yiri sida tan arrinkaas oo ah riig ay bixisay wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Somaliland Samsam Cabdi Aadan oo ahaa oo loogu talagalay degmada Allay Baday in laga qodo tuulada leedahay waalid xoor ayaa in laga qodo loogu talagalay oo gudidii degmadu ay u tagtay wasiiradda maaliyadda u soo golaatay dabeetaankii horena waan uga hadalnay imikana aan ka hadli doono haddii la haydhaa ayaa jira waxa weeye wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland Maxamed Awdaahir ayaa horta degmadii deematala oo wasiirkii ah wasaaradda ka degmahan wasiirkii horena sarfeenkii meesha waa looga qaaday meel arrinkeedu soo dhamaaday ayuu ahaa dabeeta arrinkii dhamaaday ayaa ilaa alaan aan waxba laga qaban oo dadkii masaakiinta ahaa ee dadweynaha in dee aad loo eego oo hoos loo eego oo danta shakhsigaa laga fuur yeelo danta caamka ee guud ayaa wax walba ka qaalisan arrinkaas horena waan uga hadlay imikana waxaan leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan leh in loo geeyo riigii halkii loogu talagalay hadda waxaa la sheegayaa oo dee laga soo sheegayaa degmadii odayaashii uqaashii in 4 beerood sarfeen laga qaaday 4 beerood oo ah beer ay tahay beertii wasiirka wasaaradda beeraha Awdaahir beerna ay tahay tii Cali Yare Cali Gowdhigo midna ay tahay tii Mooga Cali midna ay tahay Sultaan Axmed Nuur beertiisa 4 beerood baa imka riigii ku dawaqsay riigana waxa loogu talagalay danta guud in laga fuur yeelo degmadii laga qodo oo ay dadku ka cabaan abaarta dhacaysa awdeed isku soo wada duubo riigani ayaa ahaa mid loogu talagalay cilmiyood ay lahayd degmada Allay Baday balse waxa dana gaar ah u adeegsaday haldoorka magaalada taasina waa ta keentay in ay magaaladu ka aradnaato xagga biyaha Cabdikariin Maxamed Cabdiraxmaan Space Channel Hargeysa.